موضوعا runtii waa mowduuc aad iyo aad u qiimo badan mabaadi'da ummadnimada aan niri markii hore haddii aan asaga isla fahno qof kasta inuu tanasuli doono rajayna ama waxa aad tahay baad ogaan doonto ummadnimada ummad sideedaba intay kasoo bilaabato marka horeba maxaa la dhihi jiray qofka ilaa waxaan niri haddii uu lumo wuxuu ku qasbay inuu raadkiisa dib ugu noqdo si jahadiisa u kala helo marka haddii ummadnimadiiba lagu wareeray horta ummadnimada intay kasoo bilaabatay meeshay kasoo bilaabatay aan u celinaynaa si aan jihada marka u helno aan maxaa la dhihi jiray jaha fiican u qaadno mabaadi'da ummadnimada shantan tiir haddii la helo ayaa ummadnimana la heli karaa haddii shantan hal uu ka maqan yahay ummadnimadaas way naafaysantahay hataa haddii jirta xataa waa ummadnimo naafa ah tiirarka shantan tiiro kow dadka waa in dad la helaa labo waa in af la helaa saddex waa inaad dal heshaa ama dhul afar waa inaad diin heshaa ugu dambayntii waa inaad ballan heshaa ballan macnaha maxay tahay ayagoo faahfaahsan waa geli doonaa laakiinse waxaan rabaa hal mar yar intaana faahfaahinta ama sharaxaadka kale qodob aan u gelin sideedaba bini aadin oo dhan nebi aadan uu kasoo bilowday nebi aadan ilaahay markuu abuuray uu dhammaystiray oo nafta la geliyay waxa ku xiga waxay ahaayeen afkiyaa la baray luuqadu ilaahay baray luuqadu ilaahay markuu baray waa ogtiin xataa malaa'igtii asaga markay tartan galeen inuu caada ku leefay kadib nebi aadan jannada markii la geliyay asaga ibliis wixii dhex qabsaday marka hadlayno qodobka ku xigaa waxay tahay dhulkaa la keenay dhulka nebi aadan dhul ayuu helay dhulaa la keenay si ugu noolaado ugu tarano marka dhulkaas noloshiisa maxaa ogolaanaya marka ya ma xayawaana maya waa bini aadam aqli leh oo luuqad leh oo hadlaya rabbigiisa yaqaana diina loo soo diray marka diinta lagu soo xijiyey diinta marka lagu soo xijiyey diinta waxay u baahan tahay ballan ya ballan lagu qaatay ayay rabtaa waayahay maxaan gelaynaa markaan iyadoo qodob ayaan geli doonaa ila socdo weli waxaan bartanka ugu jirnaa daraasadeeni shanta gees ciwaankeedii afaraad mabaadi'da ummadnimada runtii maxaa la dhihi jiray tirirkeeda waa soo sheegnay asalkii ummadnimadana waa u celinay intaas markaan soo fahanay meesha ay wax ka xumaadaan mar kasta waa meeshaan meesha ay wax ka xumaadeen waa meeshaan maantana inooga baahan sixitaan hadduu ilaahay idmo waa saxaynaa san u saxnana sida ugu saxnimada badan inay noqotaan rajaynaa socda marka ilaahay wuxuu u qaybiyey ummadda xagga noloshan ka fiirinayna xagga nolosha ileen qabyaalad nolol kuma jirtoba laakiin noocuu ilaahay ka dhigay ilaahay hadda tusaale yar aan ka soo qaadno maxaa la dhihi jiray hadda waxa lagu qaybsada qabiilo magacyadooda inaa xusa muhiim ah waxba kuma qaybsanayno waddo ka fiican oo ka sahlan oo ka wanaagsan ayaan wax ku qaybsanaynaa oo ah macnaha siduu ilaahay ummadda uu ka dhigay asaga ilaahay ummadda uu kala qaybiyay laakiin adaa fahmi laha ummadda qolo walbaba gooniyaa laga dhigay qolo kastoo gooni laga dhigayna waxaad ogaataa iyadoo qoladeeda ah goonideeda ah ilaahay suu u sameeyey ay tahay in wax la wada qabsan karo inta soo fiira marka ilaahay muxuu ummadda ka dhigay shanta qabiilo waaweyn aan sheegana wuu ilaahay ka dhigay may haye shanta soomaali ma wax ku qaybinaynaa waaweyn maya wax ka sahlan ummadda ilaahay saana u qaybiye dadka ummadda soomaaliyeed adduunkao dhan waayba waa bini aadan oo dhanba meel kasta ka keen annaga kelima ahan ilaahay ummadda shan shay u qaybiyey shantaas shay hal lixaad ma soo helaysid kow dadka ilaahay u abuursaan ayuu u qaybiyey sidee waaye number kow wuxuu ka dhigay xoolaaley dad xoolaha dhaqda labo beeraleyuu ka dhigay saddex badleyuu ka dhigay dad badnaas ku nool afar ganacsatuu ka dhigay dad becsharada iyo ganacsiga sameeya qodobka shanaad xoogsato waaye mid lixaad ma haysaa adiga haddad haysa keen laakiinse shantaan ilaahay oo ummadda u qaybiye shantaanan wax ku qaybsanaynaa see loogu qaybinaa annagaa qaybin doona hadduu ilaahay idbo laakiin la socod wanaagsan waxaan kaa rabaa keliya
markaan qaybinayno inaad si fiican ii fahamtid keliya inaad ku qanacdo in kale waa barnaamij gooniya okay hadda daawad inaad la yaabaysa laga yaabaa xoolaale iyo beerale iyo badle iyo ganacsato iyo xoogsato si wax loogu qaybinaa waa iska fududahay wax weyn ma ahan annaga ka soo shaqaynay qaybinna doonna ilaa meesha ugu dambaysana kula tegi doonna si fiican iyo la soco keliya qodobka xiga mabaadi'da ummadnimada waxaa laga maarmaan ah in la helo af hooyo in la helo yahay afka annaga afka maxaa u qaybinaynaa marka sida hadda afka loo qaybo aad aragteen maxaa tiri maay afbarawaani afreer xamar ayaan maxaa la dhihi jiray afkaas waxaas war ma ahan afka waa hal af le haddaad xataa ad inta maanta lagu kala sheegaya aad isku keento kan saa markii loogu dhawaaqa kana saa ujeedadii hal waay dhawaaqiina waa iska agdhow yahay wax luuqada oo kala duwanaansha ah meeshaan maba yaalaanba soo fiirma luuqadda maxaa u qaybinaynaa annaga luuqadda annaga iska leh qof walboo soomaaliya ilaahay suu ugu hadashiyey waa ku rabnaa waxna maxaa la dhihi jira waa ku fiiri adduunyada hadda luuqadda shiinaha haddaa maqashid ka waran waxaa leedahay wax jiraba ma ahan aa laga yaabaa inaa iska dhaadhicisid laakiin wax jira inay tahay waxaa kuu sheegaya horumarka laga gaaray ya luuqaddaas horumar gaartay taanana maanta horumar waa ay gaari laadahay okay afkii hooyo maxaan ka dhigaynaa afka sidiisaba shantaan ka badan ma noqon karaa af miyiga looga hadlo miyiga af looga hadlaa jira waa isla ognahay af magaalada looga hadlaa jira af magaalo suugaanta mid lagu diyaariyaa jira gabayga war waay laakiinse war maxaa la dhihi jiray maxaa la dhihi jiray oo la isticmaalayo oo laba qof kana oo maxaa la dhihi jiray eray intuu sheekanama waa wax inta la akhriyey oo maxaa ilaahay qof uu fahansiiyey luuqadda suugaanta kow midda cilmiga lagu qoraa marka ya adduunyada dadka nololay rabaan wax horumaray rabaan wax qabsiyay rabaan wax soo saarisay rabaane luuqadii ma ka baxsan tahay maya waa luuqadda in lagu saleeyaa afka cilmiga ku qoran maamulka ugu dambeeya luuqadda maamulka ama afka maamulka adduunyada dadaa ma afaf kala isticmaala annaga hadda afkeennii waxba nooguma salaysnaba af kala isticmaalnaa waayahay dalkan leenahay waa waxaa maxaa la dhihi jiray waa shantan giis waaye dalkale maba lihinba magaceennana waa soomaal asalkiisa meesha laga keenay soomaal asalka meesha laga keeno waaye meel kale u dhaafnaa ma lahan shanta diin islaam ilaahay shantan tiiruu na siiyey wax walbana ayday ku dhex jiraan wax kasta raadi aydile laga soo dhexilaa laakiin si aawo dadkii lasoo bixi lahaa kow tawxiidka labo salaada saddex sekada afar soomka shan xajka culummada noo fasiri doonta waayahay meesha ummadda isku dhaafta meeshaan waa marka ummadda meesha ay ku kala tagtay oo adduunyadan ilaahay keena meesha lagu kala tegay waa ballanka qolo kastaa ballan waxay samaysatay oo ayada anfacayo ilaahay muxuu raalli ka yahay lama fiirinin ya diinteenna maxay raalli ka tahay lama fiirin qolo kastaa waxay fiirisay wixii maslaxadooda ku jira adduunyada saasay u kala tagtay okay annaga haddaan nahay ummadda soomaaliyeed maxaan ku ballamaynaa wax kaloon ku ballannaa ma haysano inaan hal dad inaan nahay hal dal inaan nahay hal diin inaan leenahay hal dawlad inaan leenahay hal luuqad ama hal af inaan leenahay wax kale oo intaas ka badan ma jirto daraasadeennii qaybtii labaad halkan ayaan kusoo koobaynaa waxaana geli doonaa ilaahay hadduu noo fududeeyo ama noo ogolaado qodobkii mawduucii shanaad ee la magac baxay miisaanka nolosha